asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhowaada warbixin kale oo xiise leh waxaad ka daawanaysaan channelka Madeys Television Network haddii aad cusub tahay soo dhowow subscribe noo saar channelka maxaa ka jira in qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda aysan mishaaraadkooda helin sababo la xiriira xaaladda uu dalka ku jiro ee cakiran iyo sidoo kale maalmaha fasaxa ee loo yaqaano Easter holidayska iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka dalka ku jira oo aan iyaguna mishaaraadkooda helin maxaase ka jira in uu xumaaday heshiiskii xukuumadda iyo Azimio la Umoja markaasi dhexmari lahaa in uu meel xun oo qaraar gaaray qodobadaas ayaan ku eegi doonaa soo dhawaada aan ku bilowno waxaa muddooyinkii u dambeeyay socday warbixinada markaasi lagu baafinayo baraha bulshada ee la xiriira in xildhibaanada aqalka baarlamaanka qaar ka mid ah aysan helin mishaaraadkooda hase yeeshee arrintu ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii ay soo shaacbaxeen in kuwo kale oo ka mid ah shaqaalaha dowladda iyagu aysan helin mishaaraadkooda waxaa arrintan ka hadlay xogayaha gaarka ah ee dhanka qorsheynta dhaqaalaha ee wasaaradda maaliyadda ee dalka Njuguna Njugu waxa uu sheegay in waqti adag uu dalka ku jiro taas awgeedna ay markaasi xumaysay xaaladii ay markaasi xukuumadda ku bixin lahayd mishaaraadka shaqaalaha dowladda waxa uu Mr. Njugu sheegay in laba marxaladood oo adag uu dalka ku jiro mid wuxuu ku sheegay inay tahay xaaladda deynta dalka lagu leeyahay ee uu galayo oo si xumaanayso midna wuxuu ku sheegay inay tahay xaaladda cakiran ee dhaqaalaha ee dalka uu ku jiro oo ilaa hadda aan waxba laga qaban waxa uu sheegay taasi awgeed inay xumaatay dadaaladii dowladda ay sameynayeen sidoo kalena ay xumaadeen wax walba oo loo baahnaa in la sameeyo waxa uu markaasi sheegay in shaqaale badan oo ka shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee dowladda waxyada kala duwan ee hay'adaha dowladda iyo sidoo kale laamaha ammaanka iyagu aysan markaasi mishaaraadkooda helin waxa uuna sheegay in qorsheynta dowladdu ay iyadu markaasi socoto waxaase uu ku baaqay in loo baahan yahay in dowladda lala shaqeeyo isagoo hadalkiisa sii wato Professor Ndugu waxa uu markaasi sheegay in loo baahan yahay 50 bilyan bishii si loo bixiyo mishaaraadka shaqaalaha kala duwan ee u shaqeeya dowladda iyo in la helo 8 bilyan oo shilinka dalka ah si loo bixiyo lacagaha loo yaqaano pensionka oo la siiyo shaqaalaha iyagu dowladda u shaqeyn jiray oo markaasi ka fariistay shaqadooda balse waxa uu sheegay in iyada oo qorsheynta arrintan lagu jiray ay markaasi xumaysay maadaama dalka uu markaasi galay fasaxa loo yaqaano Easter holidays oo labada maalmood ee jimcaha aynu kasoo gudubnay toddobaadkii hore iyo maanta oo isniin ah markaasi lagu jira qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee dalka ayaa iyagu sheegay in aysan helin markaasi mishaaraadkooda gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalka Kimani Ichung'wah ayaa waxa uu khamiistii sheegay in qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda iyagu ay mishaaraadkooda heleen intii u dhaxaysay 26 ilaa 30 bishii aynu kasoo gudubnay balse uu sheegay sidoo kale in bishan qaar ka mid ay heleen balse qaarkooda aysan helin waxaase taasi markaasi gaashaanka u daruuray xildhibaanka laga soo doorta galbeedka Mumias Peter Salasia oo isagu sheegay inay tani tahay xaaladii ugu xumeed ee dalka uu galo tan iyo 1963 waqtigaasi oo xornimada uu dalka qaatay waxa uuna sheegay inay tahay mid markaasi aad u xun markii loo eego xaaladaha kale ee markaasi dalka uu soo maray wuxuu sidoo kale sheegay in tani ay tahay midii ugu xumeed markii loo barbar dhigo COVID-19 ee dalka ku dhacay oo iyaduna xaalad noocan oo kale markaasi la galay waxaana ilaa iyo hadda hadallada isla dhexmaraya ay sheegayaan in xukuumadda Kenya Kwanza ay sii xumaanayso dadaalada ay doonayso inay sameyso ee ku aadan qaabka markaasi loo maamuli lahaa dowladda waxaana taasi ay markaasi fursad u noqonaysaa mucaaradka iyo dadka iyagu naqdiya dowladda oo u arko in tani ay faa'iido iyadu dhanka kale u noqon karta dhanka kale waxaa xumaanaya heshiiskii iyo wadahadaladii la filayay inay si toos ah ugu furmaan Azimio la Umoja iyo xukuumadda Kenya Kwanza waxayna tani imaanaysaa iyada oo madaxweynaha dalka William Samoei Ruto uu si cad u sheegay in uusan wada hadal ka galaynin wax heshiis ah
balse uu ku shaqaynayo rabitaanka Kenyaanka. William Samoei Ruto ayaa waxa uu sheegay in haddii cabashooyinka Azimio la Umoja wax laga qabanayo aysan ka dhignayn in heshiis ama handshake lala galayo, balse Azimio ayaa iyagu u arkaan hadalka ka soo yeeray William Samoei Ruto inuu yahay mid lagu xumeynayo xiriirka iyo dadaalada iyagu markaasi socda ee ku aadan qaabkii loo xalin lahaa dhibaatooyinka halkaasi ka jira. Cabashooyinkooda ayay ku saleeyeen inay ahaayeen waxyaabaha rabitaanka dowladda iyo waxyaabaha rabitaanka shacabka Kenyaanka oo iyagu ay doonayeen, waxaana ka mid ahaa in hoos loo dhigo xaaladda qutul daruuriga ee maciishada dhabta ee Kenyaanka ay ku nool yihiin oo sare u kacay. Taas ayayna sheegeen in loo baahan yahay in hoos loo dhigo qiimaha la kala siisanayo waxyaabaha la isticmaalo ee maalinlaha ah sida burka, bariiska iyo waxyaabaha kala duwan. Balse xukuumadda ayaa sheegtay in dadaalkeeda arrinkaasi ku aadan uu yahay mid ay ayadu wado, ayna doonaynin marnaba in markaasi dhexdhexaad laga geliyo. Waxaana dhanka kale jira dadaallo ay markaasi sameynayaan siyaasiyiin kale oo iyaguna markaasi aanan garabka Azimio iyo sidoo kale Kenya Kwanza aanu ku jirin, madaxda diimaha iyo sidoo kale rag kale oo iyagu arrimaha siyaasadda falanqeeya oo doonaya in heshiis cad ay dhex dhigaan William Samoei Ruto iyo Raila Amolo Odinga, taasi oo ay ku sheegeen in haddii ay wada shaqeeyaan ay xalin karaan dhibaato walba oo dalka hadda uu ku jiro. Waxay iyagu u arkaan in xaaladan kala qaybsanaanta ah ay tahay dhibaatada ugu weyn ee dalka uu ku jiro iyo midda sii xumeynaysa xaaladda adag ee dalka uu markaasi ku jiro. Balse waxa ay iyagu doonayaan in heshiiskooda ay sii balaariyaan ayna isku soo dhawaadaan. Taasise waxaa ka hor imaaday Rigathi Gachagua, madaxweyne ku-xigeenka dalka, oo isagu sheegay in wax dhexdhexaad ama heshiis ama wada hadal aanan lala furaynin Raila Odinga ilaa buu yiri uu ka aqbalo ama ka ogolaado ama ka aqoonsado in William Samoei Ruto uu yahay madaxweynaha dalka. Marka loo eego halku dhiga dibadbaxyada Azimio la Umoja, waxa uu ahaa Ruto waa inuu baxa ama uu tago, iyo inaysan aqoonsaneen Ruto waa inuu yahay madaxweynaha dalka. Waxay u arkaan inuu ku shubtay doorashadii la soo dhaafay, saas awgeed aysan u aqoonsani karin iyagu inuu isagu yahay madaxweynaha dalka. Laakiin hadda Rigathi Gachagua wuxuu doonayaa marka hore Raila inuu aqoonsado uu ka dhaadhiciyo Azimio la Umoja iyo dadka iyagu markaasi ku daba safan in ay ogolaadaan ama aqbalaan in Ruto uu markaa yahay madaxweynaha dalka. Weli wuxuu sheegay si cad oo markaasi bareer ah inuu markaa u aqoonsado una ku dhawaaqo. Marka ayuu sheegay in hadallo ama wada hadal lala furani karo. Wuxuu sidoo kale diiday uu meesha ka saaray inay jiraan wax heshiis ah oo ay la furi karaan. Kaliya wuxuu sheegay inay wax ka qaban doonaan cabashooyinkooda ku aadan wax ka qabashada xaaladda nolosha ee Kenyaanka iyo sidoo kale midii ay tilaabadeeda hore loo qaaday ay ahayd in dib loo furo serverka ama waxyaabaha markaasi mashiinada codadka lagu dhiibtay ee guddiga doorashooyinka IEBC iyo in ay ka qayb noqdaan guddigan cusub ee IEBC iyagu markaasi soo xulaya. Wuxuu sidoo kale Mr. Gachagua isagu sheegay in Ruto uusan ahayn shakhsi markaasi ogolaani kara rabitaanka Raila sida u ogolaadeen madaxweynayaashii hore oo uu markaasi dhunta u galay sida uu sheegay. Wuxuu tusaale u soo qaatay Mwai Kibaki iyo sidoo kale Uhuru Kenyatta oo iyagu uu markaasi aad u rafaadiyay kadib markaasi la sameeyay waxa loo yaqaan nusu mkati ama qayb laga siiyay dowladda. Hase ahaatee dadaalada ay iyagu Azimio la Umoja wadaan ay ku doonayaan in ay qayb muhiim ah ka helaan dowladda ayaa weli sii socda. aad u mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa muuqaalka dhamaadka. Fadlan like inoo saar, inoona share garee. Haddii aad nagu cusub tahayna subscribe inoo saar.